khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa qaatay muddo 30 maalin ama bil ah kaasi oo salka ku haya diidmadii xilka qaadista madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sameeyay 8 bishii lixaad ee sanadkan gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar Dabageed mana jiraan ilaa iyo haatan wax xal ah oo laga gaaray khilaafkaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa yimid qaarkoodna wali ku sugan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ee isugu jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan kuwaas oo u yimid sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka loona dejin lahaa waxaana horkacayay xildhibaanada ka socda dowladda federaalka ee soo gaaray beledweyne wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre inkastoo wasiir Cabdullaahi Goodax Barre iyo qaar ka mid ah xildhibaanadii la socday ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho ayagoonan xal ka gaarin xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka jiray gobolka oo ay sheegeen inay u yimideen sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi haddaba halkay marayaan dadaaladii lagu xalinayay khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka maxayse ka qabteen xildhibaanada ka socday dowladda federaalka ee yimid magaalada iyo kuwa maamulka Hirshabelle xalinta khilaafkaasi waa kan wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur oo ka warramay arrimahaasi waxaana uu eedayn dusha uga tuuray xildhibaanada ka socday dowladda federaalka ee qaarkood jooga magaalada oo uu sheegay inuu u yimideen magaalada qurinta khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka iyo waliba burburinta maamul goboleedka Hirshabelle sidoo hadalka u dhigay maanta waxaan imid oo howlo shaqo u imid caasimadda labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada beledweyne howlahaas waxay ku saabsanaayeen maaragtay arrimihii dib u heshiisiinta meeshii aan uga tegay inaan ku bilaabo maadaama aan waddanka ka maqnaa howlo shaqo aan uga maqnaa waxaan kaloo rabay maaragtay insha Allah inaan ka hadlo xaaladda ka taagan magaalada beledweyne khaasatan maaragtay reer Hirshabelle fikradda ay ka aaminsan yihiin xildhibaanada iyo maaragtay wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle ee u maleeyaan inaysan shaqo qabanin ayaan rabaa waxyaabo yar inaan u iftiimiyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle way shaqeeyaan waxay qabtaan shaqooyin badan wasiirada way shaqeeyaan laakiin dhibta ugu badan iyo rafaadka ugu badan iyo maaragtay wuxuu naga haystaa maaragtay xildhibaanada ka soo jeedo reer Hiiraan ee ku jira maaragtay dowladda federaalka ah maadaama ay maaragtay ay ayagu federaal ku jireen meeshii la rabay inay howlahooda shaqo ay ka gutaan dowladda federaalka ah waxay dhib iyo maaragtay carqalad ay ku hayaan amnigii maaragtay reer Hiiraan oo maaragtay carqalad ay ku hayaan tusaale ahaan haddaan ku maaragtay aan idin soo qaado waxay tahay magaalada beledweyne waxay soo martay biyo baxo waxay soo martay abaaro waxay soo martay maaragtay marxalado kala duwan hal nin oo xildhibaan ah oo ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabelle qaasatan kuwa ka soo jeeday reer Hiiraan maaragtay ma aysan ka hadlin maaragtay barnaamijkaas asiga ah ma aynan imaanin laakiin maalintii ay arrimo siyaasadeed darteed ay dhacday kulligood way wada imaadeen marka ay yimideen waxay u imaadeen oo kaliya siyaasadda markaas taagan inay sii cakiriyaan ay u yimideen maahan inay maaragtay wax ka qabtaan uma aysan imaanin waxaan leeyahay maaragtay reer Hiiraan xildhibaanada idinku jiro dowladda federaalka ah maaragtay waxay idinku hayaan dhib aad ugu weyn ay idinku hayaan dowladda Hirshabelle waxay ku hayaan dhib weyn ay ku hayaan ayaga oo fiirsanaya dana gaar ah ayuu fiirsanayo ay ka mid tahay danahooda ku aadan 2020ka sidee ku soo gali doontaan maaragtay xildhibaanimada ku heli doontaan bal qaarkood waad ogtiin 20 sano ay dhax fadhiyaan xildhibaanimada ayagoona wax u qaban dalkii iyo dadkii ay ka soo jeedeen maantana intay imaadaan Hiiraan ay maaragtay ay carqaladda ay dhigayaan waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda reer Hiiraan inay isku tashtaan aayahooda ay ka fiirsadaan sidoo kale xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur ayaa sheegay in gudoomiye kasta ee gobolkan laga bedelo lagala tashado xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya balse arrintan ay ka weyn tahay khilaafka gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar Dabageed waxaan idin kale rabaa inaan idin cadeeyo oo arrin kale ah madaxweyne Maxamed Cabdi Waare gudoomiye gobol ma magacaabo ilaa uu la tashto maaragtay xildhibaanada dowladda ka soo jeeda dowladda federaalka ah mid kastana wuxuu wataa qof ayuu wataa oo siyaasad ayuu ku soo galaya marka haddii aad aragteen Dabageed oo la keenay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka dambeeyay kuwii ka horeeyay dowladda federaalka xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka dambeeyay يعني ما رأت جواننا دن وعيد جواننا لو ودني هاي ما أهين جوان وإسكاقادنا محمد عبد الواري واحد اللي إسكو هايستا ما أهن أرنتا متاجنا ما رأت قدومي هوري حلك لا قاعد دبجد متاجنا وحي تاجن تا واحد هايستو وحي تاي ورهير شبالة يو واحد هايستو حلبانا ذيك سوجي الدولة الفدرال كأ
oo ayagu gorgortan siyaasadeed kula jira maaragtay marxaladda hadda taagan oo kula gorgortamayaan madaxweynaha maaragtay dowlad goboleedka Hirshabelle sidee annaga ku soo laabanayna waxay hadda u imaadeen waxay tahay shalay raalihii lagala tashtay ay maantii ayaa la xumaaday ayaa maaragtay si kale la noqday marka waxaan leeyahay يعني maaragtay gorgortankan Soomaalidu waxay tiraa orgeyga baroorta ka weyn siyaasad kale ayaa ku hoos jirto mana rabaan inay maaragtay ka mid dhaliyaan danahooda gaarka ah ilaa ay danta gaar ah ay ku maaragtay ku dabaqaan mid guud marka waxaan leeyahay dadka isaykiin dhigay maaragtay inay nabad ka shaqeynayaan inay horumar ka shaqeynayaan nabad iyo horumar idima soo wadaan ka fikira mustaqbalka reehiran iyo reer Hirshabelle wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ee ku sugan magaalada Beledweyne ay ka dalbadeen kuwa maamulka Hirshabelle inay la kulmaan si xal looga gaaro arrimaha cakiran balse xildhibaanada maamulka Hirshabelle iska diidaan kulankaasi maraan weydiiyay sababta kulankaasi uga baaqsadeen xildhibaanada maamulka Hirshabelle wuxuu ku jawaabay wasiir Cabdikariin sidaan waxaan ku diidnay wax kale ma ahan guriga marka hore ay deganay wuxuu ku degan cadaalad darro لأن مدحوينها ميلو دقيه قدوميه هرو حلك لقى قادنا ميلو دقيه وحال الرب أيجا ميلك بحصن أو دحدحاده إني الدجان ما أين الدجن حتى واحد الدجان حتى فو security reason حال إن مدحوينها الدجان قولوا وين يدقيه وحيل الدجان قدوميه هرو يل الدجان تاسن وحي كوشة جيسا يعني شرقال كان يومارتي شرقال كان سياسة يكمل يجي جيران مجالات مقدشو إن الله صار رأي عاصمة البلد مجالات البلدوين هذا كم معمولان guriga u degan yahay gobolka maaragtay Yuusuf Xamaayad Dabageed waxaan u diidnay marka maadaama uu guriga ka baxsan yahay meel dhaxdhaxaad ah inaan tagno oo aan maaragtay meesha la fariisano aan diidnay waxaan dhan hoteelada aan ku shirno ayagan hoteelada way ka cagajideen waxaan ku dhahnay waa mahadsantiin mar haddii wasiir Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaanadii federaalka yimid magaalada Beledweyne qaarkood ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho ayadoon xal laga gaarin khilaafkii siyaasadeed ee ka jira gobolka ay sheegeen inay u yimideen haddaba ay tahay cidda looga fadhiya xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka ayaa waxa wasiir Cabdikariin ku jawaabay mar kale sidaan khilaafkan siyaasadeed wuxuu u yaala odayaasha dhaqanka iyo wuxuu u yaala maaragtay xildhibaanada ka soo jeeday wasiirada reer Hiiraan iyo qaasatan reer Hirshabelle ayuu yaala annaga ayaa wax soo magacawnay annaga ayaa xilka qaadi sameynay annaga ayaan xalinayna waan is xalin karnaa weligeedna waan is xalin jirnay ma aha markii ugu horreysay qof la magacaabo oo xil laga qaado ma aha markii ugu dambeysay way dhici doontaa wayna dhacday laakiin muhiimadda meesha taalo waxay tahay yacni midda hadda taalo waxay ka weyn tahay tii hore dadka time ku socdo waqtiga ku socdo xilligii waa la gaaray dadkii waxay rabaa 2020 sidii lagu aadi lahaa nin walbana wuxuu rabaa arrin sakuur ah inuu ku aado gorgortan siyaasadeed oo uu ku tago marka anaga waxaan leenahay gorgortan siyaasadeed korkeena in lagu galo reer Hirshabelle waa qalad nin walba waxa soo dooran doono mee dadka uu ka dhashay soo dooran doono dadka oo ka dhalatay xilkaaga hayo annaga mustaqbalkeena reer Hirshabelle oo madaxa ay uga taagan yihiin xildhibaanada ka soo jeedo Hirshabelle qaasatan kuwa reer Hiiraan inaan naga dhaaftaan haddii aad gorgortan siyaasadeed galeysaan waxaa la gashaan dowladda federaalka ah si aad wax uga soo qaadaan oo ugu keentaan Hirshabelle ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dadaalada lagu xalinayay khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka isla markaana sheegay in dhawaan uu rajaynayo inuu dhamaado khilaafkaasi rajadu waxay ogtaa waa dhamaanay waqtiga la nagu soconayo moogiye way dhamaanaysaa insha Allah taala maalmaha soo socdo inay dhamaataan jecelna maantay way soo danjirsatay xilka qaadisti maanta 30 biri ay ka soo wareegatay waa laga yaabaa 2 maalin 3 maalin inuu ku tirsato maalin waa laga yaabaa saacadaha soo socda inay maaragtay uu wareey xilka uu maaragtay uu isaga baxo laakiin waxyaabaha aan ka soo horjeedno ama aan diidayna waxay tahay walaalayaalow waxaad tihiin xildhibaano federaal ah waan idin xushmeynaa waan idin qadarinaa siyaasadda aad ku hayseen dowladda federaalka Hirshabelle ka daaya Hirshabelle ma u baahno buuq iyo khalalaaso iyo inay hadda gasho uma baahno enough is enough Hirshabelle iyada cageeda ku istaagi doonto wayna istaagaysaa adinka inta aad wax u sameyn kartaan oo wanaag u sameeya waxa sameeysan waxay gaalada dhahan do no harm haddii aad wax wanaag u qabanaynin yani maaragtay wanaag u sameey haddii la yiraahdo naga dhaxbaxa guud ahaan wax ka soo kala hadlaya xildhibaanada ka soo jeedo reer Hirshabelle labada gobol waxaan leeyahay waxaad fiirisaan xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka maaragtay Galmudug waxaad fiirisaan Puntland waxaad fiirisaan Koonfur Galbeed Jubbaland kulligood waxay u dagaalamayaan xuquuqdii ay lahaayeen gobolkaas ay u dagaalamayaan annagana waxaan u dagaalamaynaa yaana loo magacaaba maanta yaa customkan liigeyna
yaa gobolkan la ii geynaa yaa ma aragtay kursiga wasiirka yaa la ii geynaa annaga ayaa isku mashquulsan yaanaan isku mashquulin ee aan ku mashquulno dowladda federaalka wax dheefka ay u hayso dowlad goboleedka Hirshabelle inaad ka soo qaadaan oo aad u keentaan laakiin hebel ii magacaaw iyana waqtiga ku dhamaysanin oo maasantiin baaqaan diraa waxay tahay waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka mar labaad aan ka codsanaynaa xildhibaanada ka soo jeedo maaragtay Hirshabelle ay codsanayaan anigoo xildhibaanada ka wakiila iyo golaha wasiirada in dowladda federaalka arrintan faragelin ku soo sameeyso Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Beledweyne